بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin salaamayaa. ilaahayna waxaan ka baryayaa daawadayaasha meel kastoo joogtaan inuu inaga dhigo kuwii cibaadadooda la aqbalo noocyadeeda kala duwan. waa kolley waa meel barwaaqo ah waddankeeniya, roobkuna waa inoo da'aya. ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa. kolley waa yar jimicsanaynoo socodkiibuu ahaa. waxaan yar baraarujin lahaa qofka muslimka ah markuu nebigu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi almu'minu alqawiyu khayrun wa axabbu ila allaahi min almu'min aldaciif. qofka mu'minka ah ee qawiga ah ayaa ilaahay uu ka jecel yahay ka mu'minka ee daciifka ah. labadoodabana waa khayr oo khayr baa ku sugan labadoodaba. marka quwaddaasi culimmadu markay sharxayaan waxay leeyihiin waa quwad xagga ruuxda ah iyo quwad xagga jidhka ah. labadaba way noqonaysaa. quwadda xagga ruuxda ah baa qiimo badan oo ataynu ku dadaalayno. waa quwadda xagga iimaanka, xagga macnaa caqiidada iyo cibaadada iyo xagga cilmiga. taasi wax loo dhigaa ma jiro. waa taqaayada ah aynu u soconno qofka in caqiidadiisa iyo cibaadadiisuba dhisan tahay. quwada waxa iyadana wasiilo noqonaysa oo taa ina gaadhsiinaysa quwada badaniga ah ama quwadii qofka in jidhkiisu dhisan yahay. saa daraaddeed ayaa islaamkeennu wuxuu dhiiri gelinayaa inuu qofka muslimka ahi ku dadaalo caafimaadka jidhkiisa si uu wasiilo ugu noqdo oo cibaadadii dhadhan iyo awood ugu helo. marka waxaynu xusuusannahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam dhinacyo badan buu tusaale inoogu ahaa. waxyaabuu tusaalaha inoogu ahaa waxaa ka mid ah caafimaadka, waxaa ka mid ahaa cibaadada quramaha ee caafimaadka ka mid ahaa. saa daraaddeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka qayb geli jiray tartankii xagga marka la eego legdanka. oo maalin maalmaha ka mida nin rukaanata ibnu yaziid ibnu rukaana la yidhaahdo ayuu nebigu uhi ma legdannaa, ma adigaynu legdannaa buu hi. haa, waa intaan la soo dirin rasuulku sala allahu calayhi wasalam. 3 jeer bay ninkii legdameenoo 3dii jeerba dhulku dhigay. 3 neef oo adhiyahoo sharad ahaana wuu ka qaatay. waa intii aan sharadka la xaaraantinimaynin. waxaynu uga jeednaa markii dambe adugu ninkii 3dii neefna wuu celiyey. ninkii wuxuu yidhi waxay taasi sabab iigu noqotay inaan islaamo oo waxaan gartay maadaama aan ahaa ninkii quraysh ugu xoog badnaa aan cidi legdi jirin in ninkan la weheliyo oo awooduu leeyahay aanu igu legdin. waxaynu ogsoonnahay tartanka orodku ka qayb geli jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo xaaskiisii caayisha waa kii lahaa aan beratanno. 2 jeer baa colkoo safar ku jira ayaa uu caayisha ku yidhi haabay tidhi oo iyadaa ka dheeraysay doorkii hore. doorkii labaad ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu colkii yidhi 2 jeer buu colku odhanaya hore u sii socda si aan xaaskiisii iyo dee orodkeeda loo arag. markay cidla iska helaan baa dabeedna ay tartamayaan. doorkii labaad buu haddana isagu ka dheereeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam. markaasaa nebigu waxa uu ku yidhi tilka bitilka, tii hore ayaad u dhigaysaa tan maanta. doorkii hore adaa iga dheereeyey, doorkanna anaa kaa dheereeyey. marka taasi waxay tusaale u tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu tartannadaa ka qayb geli jiray, tartanka gaadiidku ka qayb geli jiray iyo maaragtay dhiiri gelin jirayna oo asxaabta uu ku dhiiri gelin jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam. marka waxaynu baraarujin lahaynu 2 arrimood. qofka muslimka ahi ma aha mid ku dadaalo inuu jidhkiisa dhiso. sidaynu aragnay dhallinyarada qaarkood, waxaan arkayey qolyo dhallinyaradeenna ka mid ahoo soo sawiraya jidhkooda iyo siday u dhiseen oo isqaawiyeyba. taasi sax maaha, waa arrin qalada weeye. inuu qofku isqaawiyaa sax maaha. oo had iyo jeer markaa qofku jidhkiisa uu dhisaya ama riyaadada waxaan la yidhaahday iyo uu gelayo waxaa shuruuday leedahay. shuruudaheeda waxaa ka mid ah in cawrada aan la bannaynin. in cawrada la banneeyaa ceeb weeye. raggana ceeb bay ku tahay, dumarkana ceeb bay ku tahay. markaa intuu qofkii cawradii banneeyo in maansha alla loo soo qoro ceebtii baa lagu dhiiri gelinaya. arrintaa in la joojiyo weeye. iliyo inkaar baaba jirto dee jidhkiisa qaar baa cawri karo hadhowbu ayuu dareemi karaa dhibaatadaas. inaan rag iyo dumarku isdhex gelinna waa shardi marka had iyo jeer arrintaasoo kale ay tahay. waxa shardiya in cibaadada aanay kaa mashquulinin oo dee cibaadaduna waa hadafkii aynu u noolayn. riyaadada waxaan la yidhaahda iyo musaabaqadaas ama tartanka noocaasoo kale ahi waa inaanu khatar keenin.
وهذه خطر يعني كل ما يسجل كاجا سيدا ده إنه أرجنا قال هذا مرة كقاركود يقف كنفتي سيبه خطر جليس صح معها وأنا خطر للجلينين سيدا كلا حيوانك الله يسكت درع وضدك أي دعوة مركا شروطها ساتشرة مركا يتهيمي هذا هو فن ولا جمارمان كقفكي إنه شركي يصير ديسه أو روح دي يصير ديسه لبضة بيننا جاوب بحال maaha qofku qof jirkiisa qura ku dadaalaya qof jirkiina dayacay ruuxdiina dayacayna maaha laakiin way labadiisuba dhisnaadaan oo waxaynu doonaynaa almu'minu alqawi sida nabigu uu sheegay hadaad quraanka kariinka akhrido waxaad arkaysaa qisadii ninkii daaluul loolan jiray boqorkii reer banu israa'iil waxa lagu doorto quraanku uu tilmaamay wazaadahu bastatan fil ilmi wal jism waxa uu leeyahay awood xagga jirka ah iyo awood aqoon xagga dagaalka ah marka awood iyo aqoon labadaas lagu doortay marka xaqiiqatan waxay qisooyinku aad iyo aad bay u badan yihiin waxaynu soo koobi karna maaha marka qofka muslimkii maaha kawma min ash-shahm kuus xayro meel iska fadhiyo maaha waa qof si cibaadadiisii riyaado ugu helo awood ugu helo bacaan ugu helo caafimaadkiisana uu danaynay ila nabigu wuxuu inna li jasadika alayka haqqan jirkaaga xilba ka saaran xaq buu kugu leeyahay nabigu alayhi salaatu wassalaam marka awalan ruuxdaynu danaynaynaa iyo awoodday leedahay caafimaadka jirkeennana waynu danaynaynaa marka sidaasaynu kelmaddan ugu qaadanay maanta baraarujin aynu baraarujinayno inuu qofku ku dadaalo dhaqdhaqaaqa qofka muslimka ah oo kolba wixii uu kari karaya hadday socod tahay iyo haddii ay tahay orodkii iyo haddii ay tahay dhismihii kale jirkiisa uu dhisayay intaasaynu galabta baraarujin lahayn anigu runtii ma ihi hawlahaasaan maaragtay nin ku fiicanahay ma ihi galabta inkastoo dee jimicsanayna oo rabadaan baha ahaatee aan iska soconaynay haddana waa arrin u baahan inay dadku ku baraarugaan oo dadka qaarkoodna waxay ku sameeyaan quluwiyo waxay aaminsan yihiin wixii oo dhammiba in la soo xidhayo qofku halkiisa uu iska fadhiyo dadka qaarkoodna waxay aaminsan inay gaalada ku daydaanoo muruqyadu la dhiso macno kale aan la keenin labadaa qolaa loo dhaxaynaya qofkii jirkiisina waa inuu dhisaa ruuxdiisina waa inuu dhisaa marka xadgudubna male gawadfalna male nabigeennana meel walba tusaale wanaagsan inoogu ah ilaahay waxaan ka baryayaa idinka iyo aniga iyo innagaba inuu cudurradaas laga cabsi qabanay naga badbaadiyo cibaadadeennana uu aqbalo cisi iyo sharafna uu na siiyo sidaasaynu ilaahay ka baryaynaa jannadana ilaahay uu nagu casuumay cadaabkiisana inaga badbaadiyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin وانا إذي سود دعينا إذي كنا ويدي نو سود دعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.